tani waa sheeko cajiib ah dhagaha dadkanu markay ku soo dhacaan dareen gaar ah u yeesha jowhar waxaa markii ugu horeeyay ka qalinjibiyay si isku mid ah lamaana haysta 2 caruur kuwaasi oo muddadii 4 sano ay wax soo baranayeen marxalado kala duwan ku soo bartay isla markaana waxbarashadoodii ku soo idleystay hoolka ay ka dhacisay xafladda lagu guddoonsiinayay shahaadadooda heerka koowaad ee jaamacadda ee bachelor degree ayaa hal mar isbedelay kadib markii lamaanaha looga yeeray halka shahaadooyinka laga dhiibayo منى محمد عثمان iyo cabdirasaaq cumar cabdulle biite waxa ay ka mid yihiin ardaydii ka aflaxday jaamacadda Balaasma dufcaddii labaad ee jaamacadda ay soo saarto waxa ay hal mar wada dhameysteen waxbarashada heerka koowaad ee jaamacadda waxayna dadaal xoog leh ay geliyeen inay soo gaaraan maanta oo ah maalinta ugu farxadda badan ee la guddoonsiiyay shahaadadoodii waxbarashada heerka koowaad ee jaamacadda SBC ayaa il gaar ah u lahayd wareysi gaarna la yeelatay iyagoo oo aan dareenkooda soo koobi karin ay SBC la hadleen عبد الساعد وما سنتهاي وأنت درين كيك في حد يقول لازم صفار وأنا درامي كتا لما أنا مرة دي شيء وأنت شهادة دي هيك باجلور كأنتين وأنا فرحت وين دول هذه أدنى وصهاي وأنا فرحت دي ما زايد أدنى بل وحير منو طبعا كتا تاريخ دي وحبرشة أسمرتين ما ريالتي ودرامي كتا وأدب مال وذي جو مرة وقت معيان وأخوات فرقنا ما إيمانا لكن أخوات أسعار وجالن جالسين لقوا بدو أنا هذا ما أساس وقناة سوبرين كمسؤولك دومر والبيكون كأنت الحس كيس أنا بتوقع مرة هيك أو يرسني يسوع مرة هيك يرسني يسوع أوكي ومرة بقدر إنه وين قري سافر أي بل كبرن ما أنت حجبتها نهارك ودم بيس جوك جامعة هذا تبيكو الله معنا عدري مزاج marka loo eego deegaanka aynu ku sugannahay ee degmada Jowhar lamaanahan ayaa noqonaya kuwii ugu horeeyay ee ayaga oo caruur haysta waxbarashadooda isla dhameysta islana soo gaaray heerka kama dambayska ah ee waxbarashada heerka koowaad ee jaamacadda Cabdifataax Ahmed Macluum Qalbaahiya SBC magaalada Jowhar